Assalaamu calaykum. Dalka Eritrea ayaa lagu sheegaa inuu ka mid yahay wadamada cadaadiska ugu badan qaaradda Afrika ay ka dhacaan, iyadoo shacabka dalkaasi aysan haysan xorriyad diimeed iyo mid dhaqaale. Shacabka dalka ku nool Eritrea ayaa lagu qiyaasaa inay yihiin 3 milyan iyo badh, halka ay magaaladaas mare caasimadda dalka Eritrea ku nool yihiin 500,000 oo qof. Eritrea oo caalamka intiisa kale kaga duwan qodobo aad u badan aad loola yaabo ee ka dhaca wadanka Eritrea dhexdiisana waxaa ka mid ah inuu wadankaasi leeyahay hal xisbi siyaasi tan iyo markii uu xornimada ka qaatay dalka Itoobiya 1993 kaasi oo madaxweynaha ka yahay Isaias Afwerki. xukuumaddaas mara waxay gebi ahaanba dalkaasi ka mamnuucday xisbi mucaarad ah iyo warbaahin madax bannaan in lagu sameeyo dowladda dhexdeeda waxna lagaga sheego. waxay 100,000 oo shacab muwaadiniin Eritrean u dhashay ku qasabtay inay ka qaxaan dalkooda iyagoo u wareegaya wadamada Yurub iyo wadamada deriska la ah Eritrea. qodobada la yaab kale aad ku arkayso wadanka Eritrea dhexdiisa waxaa ka mid ah simikaarka wuxuu ka yahay Eritrea sida dahabka oo kale. simikaarka ayaa sida dahabka oo kale ka muwaadiniintu haddii ay rabaan inay helaan marka hore waa inay iska soo diiwaangeliyaan wakaalad ay dowladdu ugu talagashay, waxaana qofka loo ogol yahay hal simikaar oo kali ah. dalka Eritrea dhammaantii waxaa ka jira hal shirkad oo ay dowladdu leedahay taasoo lagu magacaabo Airtel oo bixisa adeeg isgaarsiinta oo aad u liita. maadaama helitaanka simikaarka shacabka uu ku adag yahay, shacabku waxay weli ku tiirsan yihiin telefoonada shacabka ee lacagaha lagu shubo. qodobka labaad, shacabku waxay lacagaha kala bixi karaan bangiyada oo kaliya. dowladda Eritrea waxay xayiraad adag ku soo rogtay xaddiga lacagaha uu qofku kala bixi karo akoonka uu ku leeyahay banka. haddii uu bangigiisa ku leeyahay malaayiin lacagihii ugu jirto, xataa wuxuu qofku bishii kala soo bixi karaa oo kaliya 5,000 oo u dhiganta $330. qodobka saddexaad, dalka oo dhan waxaa ka jira hal telefishin kaasi oo ay dowladdu gacanta ku hayso oo la dhaho Eri TV. shacabkuna waxyaalaha ay doonayaan Eri TV ayay ka daawadaan, balse haddii aad doonaysid inaad daawato ama idaacadaha caalamka mid ka mid ah dhegaysato, waxay dadku ka daawadaan Sana TV iyo Erisat oo ay leeyihiin siyaasiyiin dibadaha ku nool. qodobka afraad, khamriga iyo biirta. warshadaha kali ah ee sameeya khamriga iyo biirta waxaa sidoo kale iskale dowladda. warshada lagu magacaabo Asmara Brewery oo la sameeyay 1939 oo kali ah ayaa loo ogol yahay in ay sameyso khamriga iyo biirta. qodobka shanaad, dhalinyarada dalkaasi oo badankoodu tahriiba. helitaanka baasaboorka dalka Eritrea wuxuu la mid yahay riyo qof uu ku riyoonayay oo uu rumowday, taasi oo sababtay in ay dhalinyaro badan ka qaxaan dalkooda iyagoo u sii qaxaya qaaradaha Yurub. qodobka lixaad, caasimad qurux badan ayay leedahay Eritrea. dalka Eritrea haddii uusan haysanin dhibaatooyin dhaqaale iyo mid siyaasadeed, magaalada Asmara ee caasimadda wadankaasi waxay noqon lahayd magaalo aad u soo jiidata indhaha dalxiisayaasha adduunka. magaalada qaybo ka mid ah waxaad ku arkaysaa dhismayaal aad u qurux badan oo ku xasuusinaya xilliguu magaaladaasi gumaysan jiray Talyaanigu. magaalada Asmara waxaa sidoo kale ku yaala goobo taariikhi ah oo ay diiwaan gelisay hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay, kuwaasi oo intooda badan muujinaya horumarka magaalooyinka ee bilowgii 1900